laakiin waxa aad u xiisalay in la ogaadana dadku u baahan yihiin sawirkan aad sidatay adigu macnaha bal arrintaas haddaad gudageli karto ka sheegan karto wallaahi cumarow horta arrinta heesta ay xambaarsan tahay waa arrimo oo maxaan ku rahdaa aniga i quseeya laakiin kulley halkan inaan kaga sheekeeyo iminka caawo diyaar umihi waa garnaqsi waa garnaqsi waan filaya heestaasi aad u mahadsan tahay waa gartay tan kale waxaa jirtaa anuunbaa samaha waday taas wal iyadana ka sheekeen anuunbaa samaha waday waa hees nacam dee iga soo go'day aniga lianno anuunbaa samaha waday mar walba kan maxaan ku rahdaa wax barya waa aniga un mar walba kan u taagan maxaan ku rahdaa in la hadlo waa aniga un marka anuunbaa samaha waday macnaha waxba adigu ilamaad wadin waan gartay marka labada hees ma xiriir bay leeyihiin mise waa may way kala duwan yihiin way kala fog yihiin tan anuunbaa samaha waday waa goorma anuunbaa samaha waday baaba maxaan ku rahdaa ka horeysay bosnia waa mar kale marka anuunbaa samaha waday iyahow waxaan ka codsaday inuu hees ii sameeyo ninka la yidhaahdo allah naxariista ee xasan qowdhan haa heestaasi maalin maalmaha ka mid a ayaan isugu nimid maxaa la yidhaahdaa timacadda hortiisa waxaa jirtay geed aan isugu imaan jirnay oo maqaaxi meesha shaah lagu cabi jiray oo ay haysatay gabar la yidhaahdo cibaado ayaan imaan jirnay meeshaas aan shaah ku cabi jirnay marka abwaanka halkaasaan ku kulannay heestana anaan u sheegtay oo ku yidhi hees noocaas ayaan doonaya odayga markaa muddo waan iswaaweynay allahu naxariistay asna waxaa jiray nin aad iyo aad aan saaxiib u ahayn asna maxamed guuleed la oran jiray uu geeriyooday allahu naxariistay afmareedh ayaa iyadoo qoraalkeedii heestii warqad ay ku qoran tahay ayuu iga soo qaaday odayga ii keenay kadibna xasan isma arag aniga isaga heestii halkaasaan ayadana kula xameeyey xasan markaa wuu alifay macnaha heestii heestii wuu sameeyey haa laakiin barnaamijka anaa ugu sheekeeyey wuxuu ahaa imise daba hayda xilligan xasan aad kulmasay wallaahi kolley ma foga ayadana ma foga waxa weeyaan kolley waxaan u malaynayaa 2000 meelahaasaan u malaynayaa ma foga afmareerna muxuu kuu dhiibay afmareer waa laygu soo dhiibin uu geeye bay ahayd asaga far fiicanna uu lahaa qoraalka ayuu aad iyo aad ugu fiicnaa afmareer allahu naxariista saaxiibana waan ahay markaa sheeko adiga kugu saabsanoo bal wax yar iyadana fahamka guud ee heesta wax yar sharax fariinteed abwaanka u dhiibatay iyo wallaahi kolley dee waan kuu soo maray oo maxaan ku rahdaa jacayl baa jiray jacaylkiina dhibta dhan anunbay igu dhacaysay baan ku iri macnaha kan meesha tagay xaafadahoodii ka soo meermeereysanaya maxay dad u dirayay waa aniga un habeen macnaha wixii la doonaa la iska dhahaya anun baa dhiman baakir sigaar ku dhammee maxaa la yidhahdaa gidaarka maxay dhibtoo dhan anunbay igu dhacaysay marka anun baa samaha waday waa jacayl markaa hargeysa ka dhacay mise meel kale wallaahi niyaho hargeysa iyo meel uu ka dhacbo waa jacayl waan gartay waxaan rabaa iyadana ku weydiiyo riwaayad baa jirtay riwaayaddii la odhan jiray axdi iyo arrin aan la ogeyn dadkii qaybta ka ahaa waxaan filaya aamina muuse iyo inay ku jireen aamina muuse weheliye haa markii dambe wariyey waa tii noqotay laakiin aamina aad baan u salaami lahaa aamina halgan dheer bay soo gashay maasha allah aamina ciyaar ma may faynuus kuma jirin riwaayaddaasi kuma jirin faynuus riwaayadda aan dhignay niyahow riwaayaddaasi magaceeda iminku iga maqan yahay laakiin waa riwaayad jirta laakiin maarisa riwaayado dhan waan gartay yuusuf maxamed muumin baad ii sheegtay mar iyadana yuusuf yare yuusuf maxamed muumin ayaa wanqalay waqtiga haa iyow asaga kolley riwaayad iskuguma iman laakiin heeso uu ii dhiibay ayaa jira oo weliba aan soo bixin waxaa ka mid ahayd hees la yidhahdo muqdishaay ayaan daran haddii uu mas-uulka madaafiicda culus iyo bm kugu masaxay oo maatidaadii iyo maxaastii iyo carruurtii marna kugu laday nabad waa mahadho la yaablo maankay rogmanaya murugaan la ooyey caku midig la'aanay
muqdishaay may dadka waa gartay waxaa jira heeso muuqaalahoo jabuuti aad ku duubtay sanadkeeba ahayd heesaas heesii cabdi tahliili iyo dib u duubtay heestii maxaa la dhahdaa dhowr heesood waxaa jira cabdi tahliil qaaday oo dib u duubtay oo kale iyo heesaas kolley waxa weeyaan heesta cabdi tahliil abaaldaran waxay ku timid sideedaba waxa weeyaan hees nacam codsi ku timid weeye hees anigu aan soo qaatay oo aan iska qaaday ma aha ayada iyo heesta la yidhaahdo halow allahu naxariistay uu lahaa asna axmede abubakar waxay ku yimaadeen codsi bay ahaayeen codsi dad aan aad iyo aad nacam sharaf iyo qiimo aan isku leenahay oo iga codsaday ayaan nacam ku qaaday haddana bulshadii baa nacam ka sii heshay barnaamijyada aan ka qayb qaadanaya oo codsi fara badan ka imaan jiray marka sidaasuu maxaan ku radaa heesahaasi labadaa heesba ay ku yimaadeen oo koobiga axmed iyo allahu naxariista cabdi tahliilba labadoodba marka sanadkeeba ahayd sanadkan jabuuti aad ku duubtay wallaahi kolley waa markuu maxaan ku radaa shirka uu dhacay iyo wixii ka dambeeyey bal halow oo kale wax yar iga maqashay heestii hambay baxayso hoosbaad u hadasho hambay baxayso hoosbaad u hadasho mahoyga la jooga hunoy daraada hurdadii ka goaye waxaan hibaanayaa weli halkii aan ku kulaniyo hasaaweyni habeenkii isniintii ogaasana jacaylayatin libaan abuuro waad ogaydo cabaydi sidii u dhowre markaan kulahaa ogaasoy ujeedda fog baan lahaa afeefadantan lahaa ammaanadaa dhowr lahaa markuu baxiyey isgaadhay markuu intifaacsi joogo maxaa min xumaada keenay maxaa orida ninkeedii abley lagu saaminayo maxaa looyna sheegto weliba aflagaada keenay abaaldaraney haddaad ujeedda xinka u guuxday ilowsha dhowey nafsaha dhexdeenan ka ogano waxunbay u quuba raacdo anigu ka harsan maaye ilaah baan talada saartay oo ilaah baan waa gartay shirkii carte 2000 fanaaniinta ka qayb gashaad ku jirtay kadibna muqdisho ku laabtay muqdisho goormaad ka tagtay muqdisho wallaahi xilliga aan tagay waa xilligii dowladdii cabdiqaasin marka dowladda cabdiqaasin kolley muqdisho in yar baan joogay in yar kadibna waxaan adugu bil dhammayn ayaan joogay waan ka soo baxay jabuuti baan ku soo noqday maasha allah jabuuti maanta waxay qaadatay iskoorkii nacamdee ilaalinta fanka soomaaliyeed jabuuti fanka iyagu aad bay u asturtay aad bay u soo dhoweysay maasha allah ismaaciil cumar geele ilaahay haddaayo allah ka raali noqdo iyo ooridiisa qadraxayd maasha allah salaan aad iyo aad u ballaaran ayaan halkan ugu jeedinaya etoobiyaad muddo joogtay iyadana fankaaga etoobiya iyo bal xilliyadaas iyo wixii horumar uu sameeyey war etoobiya niyahow xilligan aan joogay fankaygu macnaa meel uu dhaqaaqay ma jirtaba yaanu fankayga gebigiisba ayaan wixii boonis quseeyey intaan qaaday ayaan bac saa ugu duubay meel baan surtay yaanu meel aan fan aan kaga socodsiino way noqon weyday liannu meesha aan tegey waxay noqotay qaxooti xiro qaxooti marka fankii xirada qaxootiga wuxuu noqday inaan jacayl iyo maxaan ku radaa aan laga samayn heeso wadani aan idhaahdee waxay noqotay in hay-ado iyo maxay loo heeso marka haddii fankii sidan uu ku soo biyishubtay baan idhi marka iska laablaabao meel iska dee halkii xoogaa waan ku raagay saan u fadhiyey marka waan iska caajisay waxaan idhi waryaha sidan tala ma ah niyahow maxaad samaysaa haye xaggeenol
hooygaagii dhabta ahayee Hargeysa meelaan ahaynoo ku qabanaysa ma jirtee odayoo iska sii hadaaf dee hadaafistii baan Hargeysay aan ku joogaa maasha Allah aad baan ugu mahad celinayaa sidii wada dhan yihiinba mas'uuliyiinta Somaliland madaxweynahooda ilaa iyo inta ugu hooseysaba waxaan leeyahay maasha Allah aad baan idinku faraxsanahay waa mahadsan aadiyan Cabdiqaadir waad mahadsan tahay maxaad ku dari lahayd isleed wada ilowday والله إني هو وحي أن إلوبي كل شعب كأي حسوسنا يا أما أي شيء دونا برنامج كان معناها إن هل كان أنكم كان دونا ورسي فربنا وانقاذ دونا وحي أن إلو سنة كل شعب كأي كسوق دونا هدي الله كريم واقرت إن آدم ما صنع هاي وكم هذا عليا وحندريم يا رنتي فرحت يو شرف إن يتهاينا كل كلمة نقلت إنه ومركي كوادين كلنا نشاكي سنو داود يا البرنامج كي أنت أصلا نكسو قبلنا Cabdiqaadir Xuseen Mayow Boonis ayaa marti noo ahaa inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.